arrintii ka dhacday meeshaan burahan boosta ka sokeeya oo ragaysinkii ciidamada iyo tuulada af urur habeen shalay aroortii oo dad badan shacab iyo ciidan baa lagu laayay shidawadayaasha ay weerareen baan dadkii taasi u diri lahaa marka arrintaas ay soo wacay waxaan jeclahay marka in taasigeega siisaan halkaas dadkii lagu xasuuqay oo ciidanka iyo shacabka tuulada degan labadaba ahaa oo ay isugu jiraan saraakiil ciidamo iyo shacab dumar iyo ciyaal iyo odayaal birmageyda lagu wada laayay ina dhaawactay ina dhimatay ina taasiga gaarsiisaan ayaan jeclahay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ka samirsiiyo intii dhimatay eheladii ay ka dhinteen iyo dadka reer Puntland oo dhan maantoba ilaahay samirka siiyo khayr qabana siiyo iyagana jannadii geeyo وشل حنبوها وأنا جيسو أي كيستي لكن قوب تصبح كدعي شلك صبح أنا هذا بيعاين ما تسلاس ما عندك يسوق جالسين يا جالسية إلهي كسم السيو تجي دمركي هالكا يعرورت كل ما تجي هالكا وها هي هالكي كلو قرابة الله يتكرر بالله نورن بانو تحسين يا دمان تود marka arrintaas waa jacayl gaarsiisan marka tacsida laga yimaado kooxdan muddo ay ku jirtay buuraha gobolka bari balse weerarkan uu ka duwanaa dagaaladii hore ee ciidamada iyo al-shabaab dhexmari jiray maxaa loo aaneyn karaa in al-shabaab ay weerar ku soo qaado fariisimo ciidamada Puntland leeyihiin horta hadda meeshii ma joogo laakiin kullay waxaan bay sababsatay dayacun bay jiray كل ضيع واجرا من ضيع ورقها هذا أما ضيع ديار جروها هذا أما ضيع قبضة الدقيقة هذا انتبه ضيع باجرة مركا ماشون هذا وأنا هاي وجه كان هذا دين عنه فورح قدنا يكلو كش يو قلقلائيو سجور رأي انت ضيع البارور جر لقى قلي مرة بدنا هذا إذا ما عم بسقطين كمان لوجو قلا مقالة بوسا سنة هذا جودة هذا وأكيد عدعان لو دين عنه لقى حاجة أرنتان وحبها أنت هاي أرن horta shilkan gaarka ah in la soo baara loo baahay marka uu horeeyo si wadada loo soo baaro oo aan dawladda kaliya ay isku ekaysi shacbiga loo qanciyo oo ay ku jiraan guddiga loo saarayo dawladda xukuumaddu inay maxay ka codsanayaan inay saameyso dadka socda oo waxgarada oo bulshada rayidka ka socda iyo aqoon-yahano ciidamada ah oo gaar ah oo istiraatiijiyada yaqaan si loo ogaado waxa qaladka ah oo meesha ka dhacay sida taas u dhacday فرصة عن سيكون عليه محل حماية عدة كمسؤولة سلوا هذا باريس اللي يغانوا نوعه أو إنترناشنال كإن لو ذا أو إيجانا يعني أنت سواء يدرس كسوماريا وتذكر ذي كل هذا أما هذا بلان دنينا يه كل نوع إني قلعان بهرت اللعبة هي مركه هوري كان كلام وحويه ماشان كل أنا هذا ماشي حفيزك مجوج برا وين العدة أنا هذا أنا وحسي عن سكين جري لا بارو وباهين ولا فريستو oo talisu yimaade u baahan tahay oo dhulka maaragtay bal waxaan sidii laga yeelaa ayay koobada lama saaran karo hada magaalada Boosaaso qoraya dadku waa mahadad weyn dinac waa laga joogaa marka waxay u baahan tahay bal in talisu yimaado oo taasi qodo dheer looga fadhiisto sidii laga yeeli lahaa oo markaas lagu dhaqaaqo u baahan tahay koonfurta al-shabaab way ku xooganeed balse dagaalo iyo duulaamo ay dawladda federaalka ku wada burahana muddo ayay ku jirtay marka ma la isdhihi karaa dagaalka xaggaasi looga wada ayaa sabab waa inay dhinacna ku soo xoogaysato wada maalinba waxa la sheegaa niman koonfur ka yimi oo qaraxyo wada boosan lagu qabtay marka in ay socoto socod xoog leh oo qaraxyo wada ama ciidan luga oo ay wax wadinay wixii ka soo horeeyaan meel kale saadkoodu ka imaanayo oo badaa ka gudubsan inta waa laga filan karaa inay meesha jiraan meeshuna meel ciyaar ma aha meeshaas wadadii halbowlada u ahayd nolosha Puntland oo dhan magaaladii ugu weyneyd oo dhaqaalaha u ahayd ma Puntland oo kaliya gobolada dhexe iyo Soomaali in badan oo kamid ah ku wada xirnayd weeye marka isma si ahaan ka dhosaas maalin walba in khasaare inta leeg intuu dhaco misna ay iska socoto ma jiri karto waa in tala laga gaaro micna sameynaysa in laga gaaro weeyo mar inta lagu dhaqaaqo markaas natiijadeeda marka la dugsan karo oo cid la kaashan karo cid badan wax la kaashan kara jira
marka lala kaashadaa loo baahan yahay laakiin marbalkan horta baarisa la soo sameeyo qoto dheer oo ay dadka qanciya siday wax u dhaceen oo ay niman ciidamada ah oo wax garad ah oo shaqada ciidanka yaqaan iyo dad rayidka sida rayid ka mid ah oo madu ku kalsoonaan karo inay meesha tagaan waxaan la ogaan siday ku dhaceenna hadda xal lagama gaari karo lagama sameyn karo anoo waagaan joognay de wixii markaas socdo oo baan anagu wax ka qaban jiray marka hadda wixii socday anagu gacanta kulama jiro waa ka fogaa laakiin tala wadaag baan ahaa dadku waa la wadaagi jiray oo isku day badan baa jiray xataa buurta laftigeeda odayaashii deganaayay deegaanka waa shilin jiray oo aan isu keeni jiray marka de anagu wixii waagaas hadda maanta waxbaa ka bedelan oo wixii hadda jaallo unbaa wax lagu qabsan karaa wixii hore lasoo dhaafay laga yimi ugu dambeyntii dad badan waxay is weydiinayaan howlgalkan galgalo ee al-shabaab iyo ciidamada puntland u dhexeeya muddo ayuu socday ilaa haddana lama soo afjarin oo waxa laga yaabaa inuu sii xoogeysanayo marka sababta howlgalkan uu dhammaan kari laayahay haddii aad nala wadaagto maadaama aad xafiiska soo joogtay muxuu yahay wallaahi dee horta ma wixii ciidan hadduu wuxuu ku saabsan yahay ama aqoon ay ku seersan tahay marka howlqabadka markii la gaaro waxa la qabanayo baa la sheegi karaa mooye idaacada iyo media laysuma marin karo marka kolley dad badan oo aqoontaani ama nagala shaqayn jiray waa joogaan arada waa joogaan anagu cid walbaba waa nala shaqayn jirtay marka wixii shaqayn jiray in la howlgeliyo u baahanta